بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la dhahaa Muumina Cabdi Caynab waxaan ku noolahay Australia gaar ahaan magaalada Melbourne muddo 20 sano ayaa wadankan joogaa caruur badan ayaa wax igu soo bartay laakiin dhibaatada sanadkan 2020ga uu nagu reebay ama uu nagu hayo ilaa hadda cudurkan faafa oo dhibaatada weyn ku haya adduunyada oo dhan waxa weey saameyn aad u ballaaran buu anaga nagu reebay haddaan nahay Soomaalida degan ama Australia oo dhan ama Soomaalida Melbourne degan dhibaatada ugu weyn anagu caruuro badan baa leenahay alxamdulillah rabbil caalamiin qoysku ugu yar baa 7 ama 6 ama 5 haysta subaxii intaan caruurtanada kicino diyaarino dhahna warkaco hooyo foldhaqo quraaco ayaan iskoolka ku soo tuuri jirnay kadibna markii iskoolka dhamaado 9 saac iyo bar baan ka soo kaxaysan jirnay caruurtanada arinta ayada ahayd ayaa dhibaato aad iyo aad u culus nagu reebtay dhibaatadaas oo ay ka mid tahay inaanan caruurtii wax bari karin inaanan caruurtii control karin in caruurtii ay nagu badan yihiin in kuwii yaraa iyo kuwii iskoolka dhiganayo galaaska u baahan inay casharka galaan ay isku dhacayaan isku hor imaanayaan oo macnaha isla hayntoodii ay nagu adkaatay caruurta laftoodii oo sidii iskoolka ay macallimiinta u maqli jireen aan waalidka u maqlaynin oo macnaha dhag laftana dhibaato nagu ah controlkoodii iyo maamulkoodii iyo inay mas'uuliyad qaadaan oo iyagu wax bartaan annagiina noo arkay inaan macnaha hooyadii caadiga ahayd waligeed ay soo hor joogeen oo kale noo arkaan oo iyo waalidkii sidii waalidku lagu yaqaanay oo macnaha xil saas iska markaa saarayaan boqolkiiba 90 haweenka Soomaaliyeed oo anigu aan koow ka ahay in waxbarashada ay aad ugu yar tahay waxbarashada haba si kala ahaatee waxbarashada technology-ga ah oo computer-ka hadda wax lagu baranayo casriga ah aanan haba yaraatee bilaabi karinba aanan aqooninba cunugii waxa waxbarashada loogu soo shubayaa online ka hadaan hooyadii aqoonin oo aysan aqoon u lahayn cunugii wuxuu ka dhaadhacsiinaya hooyo 10 ba ima yaalaba ama waaba dirayba ama wax saas ma bal ii soo dirinba macallinkayga waxba ma ba ii soo boosto gareenin buu ku leeyahay habartii ma taqaano computer-ka intay u daba martay cunugii ma garanayso oo meel ay ka gashay iyo meel laga galaba mid madoob Allah ku yaqaan weey marka midada kale 6 ciyaal ama 5 ciyaal keebay ka eegtaa keebay wax bartaa ma ba taqaana iyadiiba aqoon u baahan oo 4 xabo Ingiriiska ah markii hore ka baran jirtay ilmaheeda 10 11 12 13 14 15 aabihii uu la joogo nasiib leh waaba hadii ay heshaba oo aabaha qudhiisaba la helaba tii nasiib leh aabaha laftiisu waxa way waqti badan ma siinayo markuu 2 jeer ilmihii xagga ka laabto wariya akhri way isku xanaaqan odagii iyo ilmihii waaba iska hor imaanayaan ma isfahma kalaash baa halka ka dhalanayaba marka dulqaadka aabayaashuna aad buu yaryahay wax yar de mooyaan fara ku tirisa xaqiiq ahaan markaan ka hadalno oo dulqaadkooda aad buu u yaryahay marka kuwa kalena maba la joog maba haystaanba oo waaba ka maqan yihiinba mid baaba 6 haysata 3 high school iyo 2 primary ah imisaad seed u kala baraysaa mid 2 kale yar oo ayaguna aan wali iskuul gaarin oo cilcilis u baahan bay haysataa marka dhibaatooyin aad u badan ba ayuu nagu reebay cudurkan coronavirus-ka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurkaana dhaafsiyo macallimiinta ilmaha wax noo bari jirayna waxa way abaal gud weyn bayba nagu leeyihiin maba ilaawi doonaba taas lafteeda waa caqabad sababtoo ah jikadii baad isla joogtaan caruurtii waxaad doonaysaa inaad jikadii alaabtii dhaqdido jikadii cuntadii karisidoo wixii diyaarisid sharqantaasaaba dhibaysaba waxa laga yaabaa macallinkiisa inuu online ku jiro oo uu khadka ugu jiro hooyo waxba ma maqlaayo bas wuu cunugii waaba hadii kale waaba sanifayaaba marka qolal badan ma wada haysano 5 ciyaal adigu qiyaas imise qol baad kala gelin kartaa ku kala xareyn kartaa oo aad mid walba dhihi kartaa qolka ku jir ayaga dhexdoodii way isqashqashaadayaan oo disturbing wax la yiraahdo isku sameynayaan oo galaaska intuu mid ku jiro midka kale inta soo kor istaagayo qashqashaadaya waxba isku dagaalayaan marka dhibaatooyin badan baa naga haysata guriga ilmaha lagu barahayo aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa haddaan haweenka Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed baan nahay qurbaha ku nool meel kastaba